هريرة ayaa wuxuu rabaa midii Cabdiraxmaan bin Auf inuu jilo dhaha qaar ninkii wuxuu ku leeyahay isbeddelay guurka ka bacdi ninkii isbeddelay ninkii ma isbeddelin ninkan uu murugsan yahay fikraha lacagihii uu soo deysada ku taagan iyadana waxay sugaysaa habeen walba inuu casho u kaxeeyo la qosqoslo yaa saacadadaas iyo farxadaas dareemi kara qof aan gadaal laga dhagelin laakiin qof markuu habeen sarrifta tago u soo sawirmayso fariintii bangiga ya kiradii guriga korontadii biyihii ayada maanta oo dhan wixii soo baxay way rabtaa in laga yaabo marka qaar inuu 200 gram meherka xasuusto meherkii wax xasuusnaa qofkaas marka farxadda iyo macaanida ka tagayso wiil lacag leh oo ma qoyskiisa taajiriin yihiin gabar dan yar u guursan kara ayada noloshaan ka soo baxsan noloshaan soo galaysaa laakiin wiilasha inay qaldamaan ma ah gabar dhaqaale leh waa iska jeclaaday iyo waa rabaa iyo waa ka helay iyo ma soconayso waayo gurigaas ma dhismaayo familkeedii noloshaan ciriiriga ah ee oo sheekeynaysa maalin walba gabadhood inay dayacantay oo arkayaan mana dayacno laakiin tabartii intaas ah haddii wax laga fududeynayo ninka ragga uu rabaa asaga oo tartiib inta guriga la goglado labadaas haddii loo yeeriyo adeeryaashii familki meher waa meher ma ogtahay haddii la xaroodo nimanku waa rabaa laakiin gabdhaha ayaa waxaa saameeyay waxaan teknolojiyadda waaga hore dadka tirada inta isguursatay inta isfurto war uma hayn jirin anaga ma ogaan jirin laakiin hadda meediyaha dadka dhan baray meeshaan aan wada joognaa anaga dhan waa fiirineynaa maanta guur baa dhacay 6 bilood ka bacdi waa la isfur kuwaan isla gaarin balahada ha 6 xataa qaar isla gaareen 2 bil ka bacdi waa la isfur muddo yar ka horna waxaa arkaynay in oo meher weyn iyo guur weyn iyo wixii aawe ma jirto nin baa mar ma ogtahay aweyso wuxuu guursaday gabar reer Kuwait ah asagana waa reer Kuwait marka Kuwaidiinta waa ogtahay oo qaliijka dhan waa dad iska hanti badan ma ogtahay guri weyn bay reer ahaan gabadhuna degan yihiin wiilkuna degan yihiin dad qasriyaal ku nool marka la soo guursaday sidoo kale guri weyn oo qasriyaha la degay marka gabadhii ninkii baa muxaadaro dhageystay oo sida Abu Hurayra uu noolaan jiray ayuu dhowr mar ku xishtay Abu Hurayra uu gaajeysnaan jiray caloosha uu dhagax ku xiran jiray gabadhii uu yimid wuxuu ku yiri noloshaan waa israaf anaga waxaan noo haboonaa sida Abu Hurayra u noolaan ma sha Allah marka noloshaan waa israaf ilaahay raali kama ahan sidaas ina oloon gabadhii waxay istirninkaaga ha ka hormaanin marka waa la isla qaatay guri yar oo meel yar oo maqsin ah baa noloshii lagu soo koobay qol fadhi ah asaga un baa jiif ah asaga marka gabadhii markay saaxiibadeedu u imaadaan meel ay fadhiisay kala ma hayso ninkii bay dhaysaa ka bax qolka ma ogtahay maalinka dambe marka way dhibsatay nin wadaadii u tagto xiraade ninkayga wuxuu rabaa inaa noloshaan ku noolaano anigana way dhibtay nolosha Abu Hurayra noloshiisa way dhibtay marka ninkii uu yeero wuxuu dhahay kaalay maxaa ku dooratay nolosha Abu Hurayra qaraabo ma aheedeen u dhahay wax xiriir ma idinka dhaxeeyo ehelnimo ama kasuur maya hadda mid Abu Hurayra dooratay tii Cabdiraxmaan bin Auf iyo Abu Bakr Siddiqna waa dooran kartaa because ayaga dad hanti leh ahaayeen sida dadka hantiilayaashana u noolaayeen waaqicana hadda jiro marka nolosha la isku qaldaa waxa qof ku nool nolosha Abu Hurayra ayaa wuxuu rabaa midii Cabdiraxmaan bin Auf inuu jilo